warkalamaanay isan waagii baryo walaala ciyaaraasan unina may baaraanay waa kii baryo bu warshiye leeyo waa ku raabtun nin bari may war ay haytan warmadeeyow ma ku hoyatay nabad xalay hooyadeen oo hanga guradi muddo lagu hayeeyo xalay hooyadeen ma ku hoyatay nabad xalay hooyadeen ma ku hoyatay nabad xalay hooyadeen xalay hooyadeen ma ku hoyatay nabad xalay hooyadeen war bishaaro professor Abdullah Mansour waxa uu yiri xilligii ololihii barashada farta Soomaaliga guddi kormeeraha waxay u yimideen macallin arday sabuurad ugu qoray hooyo Faadumo mahaasay aaday kadibna ninkii guddiga hogaaminaya macallinkii wuxuu ku yiri macallimo waxaad qortay waa maxay markaas uu af Soomaaliyan qoray markaas uu yiri kormeerihii waxa loo baahan yahay afka hooyo inaad qorto oo aad tiraahdo hooyo Faadumo halkaas bay aaday kadibna macallinkii ajeestada wax ku qorayay inta dhigto wuxuu yiri yaa maanuka isku hooya war macallinku kormeerihii intuu ku xanaaqay miyuu madaxa ku jeestay warnimada ajeestada martabashir baa looga jeedaa war jeestada magoradaasana jubba jiiradeeda anoo maraayo jijim ijoojinino jallaatam iweydinino ma u jawaawin waa ka jeesti maku jeestaynino maku jeestaynino warnimada macallinkii professor Abdullah Mansour sheegay waa u garaabayo Allah ilaahay isku hooyo manihin war idinka aan fahmine jeesto jaaw jaako jallo jardin iyo jeero dhammaan ereys af Talyaani waa afka hooyana ma waa iyaaba gormaan Talyaani isku hooyo noqonay war isku hooyo miyihiin Talyaani laakiin uniba wali naganay anjaraadi dareer guudu barada anti arti ki guuduna baradu ay tay ki jeenu ku dhumi ariyamadeeyo hooyo ilaanta adduunyadu hubaashi hal iska ma baxdeeno alayir Abdul isku hooyo miyihiin ayo adalaanta adduunyada ogaalshe arirama ku bahano yalla eri aga warmadeeyow hadan inta lama orane war yaareen anigu dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisi gabooso marodi jahmiya war dhulka hooyo in la difaaco raba ariyata show dhulka hooyo in la difaaco ma xume laakiin samigay Abdullah yaabay waxa uu yiri halgan dad ku heshiiyaya hunguri doonka horyimaad halgan dad ku heshiiyaya hunguri doonka horyimaad war Abdullah hunguri doon iyo sixun wuxuu doon iyo ku qataarba waqtigoodii waa dhamaadeen ra'iisul wasaare Xamsana waxa uu yiri gacan ku dhiigle af ku dhiigle qalin ku dhiigle iyo lacag ku dhiigle intaba tilaabaan ka qaadayna war inta waa gartay uur ku dhiiglaha maxaa laga yeelayaa war hore waxa loo yiri qofkii isha daba aadmiga arkaya qofkii uurka dabana Allah u jeeda war ma haysiine Puntland waxay noqotay Soomaaliya dawlad goboleedka ugu dekedaha badan maantana waxa xariga laga jaray dekedii Garacad oo dadka reer Puntland oo isku tashaday ay dhiseen si casri ahna waliba loo dhisay wareer galmudug xamaal ma u doontaan yaa heer Shabeelle xal looga tagay ya ku shaqo ma rabaan miya warka way dhex gasheen furitaanka dekeda Garacad maanta waxa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Lafta Gareen wasiirka gaashaandhigga Kenya Aadan Barre Ducaale aadan sada war aadan af Soomaaliga badan waa eeday uu yiriyo markaan hadlaba mudday Soomaalida hadal haysaahe waxa kale furitaanka dekeda ka qayb galay wasiirka ganacsiga Itoobiya shirkado iyo siyaasiyiin kale badan waxaana madaxdaas oo dhan soo dhaweeyo marti qaaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni war qorqor baa deked laani haysay dekeda Garacadna waa u dhowdahay muxuu furitaanka uga qayb gali waayay war dekeda hobyood maxay u daahday magaari gacan baa lagu dhisaya war hobyo ama gaari gacan ku dhisa ama badal ku dhise dekeda Garacad waxay tusaale u tahay shacabku hadduu isku tashado inuu wax qabsan karo hankoolo waa ku jeedaa kullayba shaqo taga tahay goormaad wax garataa war Abdullah wara waxa loo yiri markii wax lagu dhiibaad wax kala garataa wargooyin waxba kala garan maysaane Puntland hooyadii federaalka weeye hooyadii horumarka iyo dekadaha
inay noqotona garbay u leedahay. waryaareen war ma haysaane Soomaaliland ba 4 dekedood bay leedahay laba barbaray ku taala midii hore iyo mid dambe oo casri iyo imaaraad ku dhisay mayna imikay gabagaba ku dhowdahay seelacna waa soo jireenoo de waa taqaanaan waa sax Soomaaliland dekedaha ma Soomaaliya kula tartamaysaa mise Puntland warde Puntland wax badan bay naga koobiyeysay aryaadaha wixii wanaaga in la isaga daysado horta ma xuma heer garacadnaha waa tashadeen oo walaxay qabsadeen reer hobyana waxaan leeyahay calaacalka injiis ka dhaafteen wax qabsadha waana tii hore loogu mahmaahay ragtaashaada waa toolan mahmaah ku tiilayaan tuhma ragtaashaada waa toolan mahmaah ku tiilayaan tuhma warwar ma haysiine Soomaaliya mar dhow waxay rajaynaysaa horumar dekeda ka badan qamiistii la soo dhaafayna waxaa la saxiixay heshiiska shidaalka sidii loo soo saari lahaay aryaa dekeduhu soo kuwii laga dhoofin lahaa shidaalka maaha war madii badiyana shidaalan dhoofina ana waliba fadailuti anan tuku bilaawa illa koraa rooga lan ila warama waaya warmadeeyow inaad nabad meeshaad rabto ku marto laftirkeeda waxay u baahan tahay in dadku isku tashado war walaweynay shirkad batroolka soo saarta hadaad heshiis la saxeexateen annaga markaad itiraaf noo diideen shirkadihiina dhaheen aqoonsi la'aan heshiis geli mayno ilaa ilaahay baana aqoonsanay shidaalkii baa iska soo fatahay dee waa kaas laxle ka soo burqaday ee la iska dhuranayo aryaa horta gaboosow hadaad shidaal heshay aqoonsigan aad ka daba ordaysa xaad ku fale warnimayow shidaal baad ku haysaan anigu arrintaa waan ka digaya dhowr jeer horena waan ka digay madaxda qarankana waxaan leeyahay Soomaalida waad ogtiin oo baabuur ma wada laha shidaalkana lama cabbe gawaarida lagu shubtaa arrintaa shidaal soo saaristana rag baabuur leh baa dabada ka riixaya shidaalkuna wuu naga dhaxeeya marka madaxweynuhu arrintaasi cadaalad ah u fiiriyo oo dadka lugeeya iyo kuwa baabuurta ku dhaafaya waxa u simo war adigan siyaasadda iyo xulufaysiga socda fahmine Ali Xaaji Warsame wuxuu yiri reer Puntlandow reer Mudugow haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta xariga ka jaray dekeda shanaad ee Soomaaliya garacad jidkii tariiji oo ah wadnaha mashruucan uu ballan qaaday soo ra'iisul wasaare labaad uma dhiganto guulaysa madaxweynena waa raaciyay war arrinta mar labaad baan ka digaya hadda koor anaga madaxweyne farmaajo dekeda hobyo noo dhagax dhigay jid 4G ah oo Itoobiya galana uu ballan qaaday ra'iisul wasaare labaad baan u qaadanay guulaysana waa niri wixii ka dambeeyana waad ogtiin war hankoolo dadkii aan la qamaajin walwalba madiyada leetan eel kala meelin ku ogda wargooyin war ma haysaane shidaalkii ayaantii hore qaaliyoobay waa soo raqiisay laakiin wax kastoo loo qaaliyeeyay kicitaanka shidaalka isma bedelin oo waa sidoodii war Soomaalidu marba hadii shaygu qiimo gaaro hoos uga dajiya ma yaqaanaane walina gaadileydii iyo korontadii markuu shidaalku qaaliyoobay waxay ku dareen markuu jabay kama dhimin war Soomaalidu xilligii coronavirus waxay qaaliyeeyeen wali waa sidoodii dagaalka Ukraine waa ku sii dareen war hankoolo gudaarta ragiisti mooska ma ka jara war niman yahow dalka abaartii dabadheer oo kala ka jirto waatan la leeyahay liinta maalmaha socotana biyo leedahay say wax u jiraan war Cabdikuuso war ma haydin dhergananin baahan war kama haye dhulkii shabaab laga xureeyay ilaahay ayaa roob siiyay war gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte wuxuu yiri markaan iska riixina ilaahay roobkii noo shubay anda dogoble goortan dilaa roobkii noo daaymiyo yiri dhulkan iska nahariisada irkasinka nahariisada ilaahay ba eri war ma haysiina maanta waxa la yiri Hiiraan tii ka dhacday waa la yaabay aaga moqokorina laba nimo lagu qabta dhagaxa lagu dilaa la yiri war ma inay isneesteen baa lagu eedeeyay war macawisleeya qabataa la yiri madaxyadana waa ka goosteen la yiri gorba Cali Jeyte u qaadeen war ma inay jilaalka uga baxaan bay rabaan wallahi Cali Jeyte war baa u yaale lacagta iska diyaariyo war masaajid Cali Guud dagaal culus ka socda waxaana ka baqayaa in shabaabkii lagu dilo Cali Jeyte loo qaado war nimiyow Soomaaligu guruntaan waliba ku absaday lan riyaaje isku daagsa unti madajay lugooye Cali Jeyte linjeey warmadeeyow reer Koonfur Galbeed taliya shub haday madaxay u geeyaan meequu dhiibaya war ma haysiine Koonfur Galbeed magacii macawisley waa bedeleen eel bardana waxa lagu soo bandhigay macawisley wala diracley waxayna la baxeen magac la yiraahdo caana ka dhan wargooyin garan maysaane nogob weyno naqhelaya ku noolaada oo geela naxna xayaha ku duduwaan irgaha ana ka dhan reer Koonfur Galbeed asaasan isbedeleena war ma haysiina maanta waxa dil toogashaha lagu fuliyay Cabdullaahi Cabdi Ceydiid oo hore loogu xukumay inuu dilay wasiirkii howlaha guud Cabbaas Cabdullaahi Siraaji Abdallah u naxariista labadoodaba war marxuum Cabdullaahi Cabdi Ceydiid qaraabadiisu waxay leeyihiin toogasho siyaasadeed baa lagu fuliyay waxayna u sababeeyeen in dilku kama uga dhacay labadii beeloodna ka wada hadashay madaxweynihii horena in toogashada la fuliyo warinta darteed u saxiixi
diiday warankoolow ninkii wax dilaa waa in loo dilee wasiir dawladeed maxabeel ka galay in lagala xaajoodo war cabdikuusow khamiis jimca ka dambaysay madaxweynuhu wuxuu daah furay mashruuc loogu magac daray Soomaaliya cagaaran guriyar hinjagaaran ay mariyo lilnijeede war waxaa lagu yiri 10 milyan oo geed ayaa dalka lagu beerayaa kii ugu horeeyana madaxweynaha beeray war ma yarka Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge Hargeysa cagaar buu ka dhigay war Abiy Ahmed ka Itoobiya maalin kasta geeduu beera beeraleydana aad buu dhiirigeliyaa ma sababtaasuu tulli guuleed ugu soo noqnoqdaa war madaxweyne Xasan Sheekh geedo hal beero hoos ari maalin kasta intaasoo kuna geed ee wali gooyo taasna may ku ari war dalku dagaal uu ku jira geeda beeris miyaa loo joogaa war madaxweynuhu gacanna waa ku dagaalamaynaa gacanna geedahan ku beeraynaa buu ku yidhi war dagaalka shabaab haddaan labada gacmood la isugu geyn daacad lagama aha war islankii dagaalka ka nooga geed isku fadheedo ka naabsada ma fada war meeluba meeshay ka geeda badan tahay waa ka roob badan tahay la yiri war geeduhu soo nabad ma rabaan nololna fadaayan horta Soomaaliya masaxariis Sacuudiga u maleeyeen markay leeyihiin geedaan ku beerayna war adiga kuwa Ilaahay beero amaan ka waayay war ma haysiine madaxda Ingiriisku xilkii waa naceen meeshaasna niman Yahuudiyaan ka jiro oo nima is casilayeen oo adag ayaa looga baahan yahay war cabdikuusow xil dheer looga ma tagee isla xisaabtanka meesha ku badan war taas waxa kaaga daran ra'iisul wasaare kasta markuu is casilayo isaga oo inay xafiiska ka tagaan war dagaalkii labaad ee adduunku intuu san bilaaban waxa is casilay ra'iisul wasaareyaal badan oo Ingiriis haddana afar bay marayaan ra'iisul wasaareyaasha Ingiriiska is casilay marka waxaan ka baqayaa in dagaal culus oo faraha looga gubtay adduunka ka qarxo war ma dagaal adduunka u dhiman kacdoonka shabaab ee socdo miyaad arkeen shacabka horboodayaan war midka Ukraine Ruushka kala haysta miyaadan arag xoogaa dagaalka ka xoog badan war ma adigaan arkin Tigray iyo Itoobiya waxa kala haysta war ilma adeerayaalow intaan dagaalkaas u bilaaban ciidankeena Eritrea nala kaga keeno xarfaanay waa idin bari ah intaan dagaalkaas u bilaaban cunaqabataynta hubka nagala qaado yaan cadawga naloo gacma qabane war Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis leh waa la sugaay ma hay dagaalka sanfaafiyo haytan war waxa la yiri qofba qof intay ka nabad jecesha waa ka u badan tahay war ciidan sharci ka celinaynin shanta la iskaga dhacsaa miyaa la idin dhig war maxaa ku dhigay meesha maraqaaqdi xageen aada marka war dagaalka dhaxlaan ee rooji war meelunaade fadhiga ka war iska masaajid cali gadu saaka la xureeyay saaka war anu cidna la heshin ma yaga taga war yad lankiyad warna ka iska dhic warya war jooji war dagaal heshiis hayta heshiiska qasabka